warqaddii 50 sano ka hor la qoray ee hadda qabsatay warbaahinta caalamka. Nin ka soo jeeda gobolka Alaska ee dalka Mareykanka ayaa isagoo qoryaha dabka lagu shito goonaya waxa uu arkay dhalo ay ku jirto fariin la qoray 50 sano ka hor. Tanner Ivanov ayaa hawshiisii hakatay markii uu indhaha saaray fariintan oo ku qornayd luqadda Ruushka, wuxuuna isla markiiba sawirkeeda soo dhigay boggiisa Facebook-ga. Waxaa warqadda ku xusan inuu badmaaxe u dhashay Ruushka qoray taariikhdu markay ku beegnayd 20-kii bishii Juun ee sanadii 1969. Ninka qoray ayaa markaas ka mid ahaa shaqaalaha markab lagu magacaabi jiray Sulaak. Waxaan ku khasbanahay inaan ilkaha ku furo daboolkii lagu soo xiray dhalada gudaheeda wuu qalalnaa, warqadda ku jirtayna iyadoo qallalan ayaan ka soo saaray, ayuu yiri Ivanov. Qoraalka ku yaala warqadda ayaa micnihiisa lagu sheegay sidan: salaan kal iyo laab ah ka socota markabka Ruushka ee lagu magacaabo VRXF Sulaak. Waan ku salaamayaa qofka warqadda helayow. Waxaan kaa codsanayaa inaad jawaab ku soo hagaajisid tilmaanta ah 43BRXF Sulaak, taasoo gaari doonta dhammaan shaqaalaha markabka Sulaak. Waxaan kuu rajaynayaa caafimaad iyo cimri dheer oo ay farxad la socoto. 20-ka Juun 1969. Sheekada ku saabsan warqaddan ayaa cirka isku shareertay markii uu Master Ivanov sawirka soo geliyay baraha bulshada. Warbaahinta Ruushka oo aad u daneynaysay sheekadan ayaa raadisay ninkii qoray warqadda kaasoo weli nool. Waxaa durba la helay ninkii qoray oo lagu magacaabo Captain Botsanenko oo hadda jira 86 sano. Markii loo sheegay in warqadda dhalada ku jirtay la helay, aad buu u ilmeeyay ugana xumaaday arrinta loo sheegay. Master Ivanov ayaa bartiisa Facebook-ga ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sheekada weyn ee uu abuuray sawirkii uu soo geliyay bartiisa Facebook-ga.